السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بان idin salaamaya saaxiibayaal ku soo dhawaada warka channelka xogta dalka qodobada aan idin soo gudbin doono waxa kamid noqonaya diyaarad sidii dhaawacyo kala duwan waxay ka soo degatay garoonka diyaaradaha aadan cadiya magaalada caasimadda Muqdisho maxay sidii warka ayaa ku daawan doontaan saaxiibayaal sidoo kale saaxiibayaal warka waxa ku daawan doontaan rag watay qaraxyo oo waxa lagu qabtay gudaha magaalada caasimadda Muqdisho ujeedkooda wuxuu ahaa in ay isku qarxiyaan mas'uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir warka ayaa ku daawan doontaan saaxiibayaal sidoo kale waxaad daawan doontaan xubno ka tirsan al-shabaab waxaa lagu dilay qaybo ka mid ah gobolka Bokool warka ayaa idinkugu soo gudbin doonaa hadduu ay beedmo sidoo kale daawadayaal waxaad daawan doontaan gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu si adag uga hadlay arrinta maqaamka magaalada caasimadda Muqdisho kama marna dibadbax lagu taageerayo hadalkii madaxweyne Farmaajo oo ilaa iminkan ka socda gudaha magaalada caasimadda Muqdisho wasiirka ammaanka maamulka galmudug oo ka badbaaday isku daydil oo lala damacsanaa qodobadaasi qodobo kale ayaa daawan doonta saaxiibayaal iminkan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan haddii aynu ku bilowno saaxiibayaal diyaarad sidee dhaawacyo waxa ay ka soo degatay garoonka diyaaradaha aadan cadiya magaalada caasimadda Muqdisho wararka naga soo gaaraya gudaha magaalada caasimadda Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in garoonka diyaaradaha magaalada caasimadda Muqdisho ay ka soo degtay diyaarad sidee dhaawacyo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya dhaawacyo laga dejiyay gudaha magaalada caasimadda Muqdisho ayaa gaaraya ilaa iyo 15 askari oo la sheegay inay ku dhaawacmeen dagaal shalay dhexmaray ciidamada dawladda waliba kuwa xarakada al-shabaab oo ka dhacay deegaanka Abaal oo 18 kiiloomitir u jira gudaha magaalada Xudur ee gobolka Baay ka tirsan dhaawacyada laga soo dejiyay magaalada caasimadda Muqdisho ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ay aad u daran tahay xaaladooda caafimaad dagaalka oo ka dhacay deegaanka Abaal oo ahaa mid aad u culus isla markaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac aad u badan oo soo kala gaaray ciidamada dagaalamayay waliba xarakada al-shabaab iyo waliba kuwa ciidamada amisom ee ku sugan qaybo ka mid ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya wali kama aysan hadlin dhaawacyada laga soo dejiyay gudaha magaalada caasimadda Muqdisho dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dagaalka ka dhacay Abaal ay ku dishay ilaa 20 dagaalyahan oo ka tirsan xarakada al-shabaab inkastoo aysan jirin ilo madax bannaan oo arrintan xaqiijinaysa sidoo kale dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa gool ka sheegtay dagaalka waxayna sheegteen inay markaasi ku dishay 15 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya oo markaasi ku jiraan saraakiil ay sheegeen in lagu soo tababaray gudaha dalka Turkiga dhinaca kale daawadayaal haddii aynu eegno magaalada caasimadda Muqdisho waxaa lagu soo waramayaa rag watay qaraxyo kala duwan waxaa lagu qabtay gudaha magaalada caasimadda Muqdisho ujeedkoodana wuxuu ahaa in mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ay isku qarxiyaan afayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Sadiq Yuusuf Cali oo u waramay warbaahinta ayaa sheegay in maanta ciidamada ammaanka ay ka hortageen qaraxyo la doonayay in laga fuliyo gudaha magaalada caasimadda Muqdisho Sadiq ayaa tilmaamay in ciidamada booliiska ay gacanta ku dhigeen 2 nin oo watay walxaha qarxa kuwaasi oo tilmaamay in markaasi la doonayeen in markaasi lagu dhibaateeyo dadka shacabka waa sida ay sheegeen maamulka gobolka Banaadir afayeenka booliiska ciidanka Soomaaliya ayaa tilmaamay in mid ka mid ah raggaasi lagu qabtay agagaarka isgooska case control afgooye isagoo oo qarax markaasi ku dhijinaya gaari uu leeyahay mas'uul dawladeed walow uusan shaacin magaca mas'uulka sidoo kale wuxuu shaaciyay in nin kale oo xirnaa jaakada qaraxyada lagu qabtay dhinaca deegaanka celasha biyaha ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib howlgalka ballaaran oo ay halkaasi ay ku sameeyeen ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya dhameys Sadiq Yuusuf Cali oo hadalkiisa sii watay ayaa carabka ku dhuftay in qaraxyadaasi la doonayay in lagu carqaladeeyo ammaanka magaalada caasimadda Muqdisho gaar ahaan banaanbaxyada maanta ka socda caasimadda ee lagu taageerayo hadalkii madaxweyne Farmaajo ugu dambeyntii afayeenka ayaa xusay in saacadaha soo socda ay soo bandhigi doonaan raggaasi oo uu tilmaamay in haatan ay ku socdaan baaritaano dheeraad ah ammaanka magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii ahaa mid degan marka loo eego qaraxyadii hore ee ugu dhici jiray magaalada caasimadda Muqdisho inkastoo ay weli markaa ka dhacaan falal u badan dilal qorsheysan dhinaca kale daawadayaal haddii aynu eegno xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaa lagu soo waramayaa in lagu dilay qaybo ka mid ah gobolka Bokool General Cabdi Xamiid Maxamed Dirir oo ah taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka ayaa ka warbixiyay dagaalo ciidamada dawladda Soomaaliya ay al-shabaab kala wareegeen duleedka degmada xarunta ee Bokool taliyaha ayaa sheegay in howlgalo ay ka fuliyeen deegaanka Abaal waliba tuulooyin hoostaga
ay ku dileen ilaa 11 xubnood oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab. sidoo kale wuxuu tilmaamay in deegaankaasi ay gacanta ku hayntooda la wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya gaar ahaan guutada 9aad ee qaybta 16aad. Generaal Cabdixamiid Maxamed Dirir oo hadalkiisa sii watay ayaa xusay in howlgallada ay sii socon doonaan ciidamaduna ay ku sii siqayaan deegaano ku yaala gobolka Bakool. dhinaca kale dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo ragga soo saartay dagaaladaasi ayaa guulo ka sheegatay waxaana ay baahisay inay khasaaro xoogan ay gaarsiisay ciidamada huwaanta ee Soomaaliya. war ka soo baxay xarakada al-shabaab ayaa lagu sheegay in halkaasi ay ku dileen 15 askari oo ay tilmaameen inuu jiro sargaal 3 xidigla sida ay u dhigeen hadalka dhaqdhaqaaqa al-shabaab. xaaladda goobta lagu diray ayaa maanta yara degan balse waxaa dhaqdhaqaaqyo military ciidanka xoogga dalka iyo waliba kuwa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka wadaan deegaanka Abaal oo ku dhawaad 20 kiiloomitir dhinaca bari kaga xiga gudaha magaalada Xudur ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. dhawaan hogaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Maxamed Lafdigaren waxa uu sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya inta badan howlgallo ballaaran ay ka sameyn doonaan deegaano iyo waliba degmooyin ka tirsan gobolka Bay. badi dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxay weerar kala duwan ay ka geystaan inta badan gobolka Shabeellaha Hoose ay u badan yihiin badi. sidoo kale ciidamada dowladda Soomaaliya waxay inta badan ku wada dagaalamaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose iyo waliba gobolka Bay iyo waliba Bakool oo dhammaantood ka wada tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. dhawaan ayay ahayd markii taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu sheegay in inta badan al-shabaab oo dhawaantan laga sifeyn doono deegaano markaasi ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya haba ugu badnaatay deegaano dhowr ah oo hoos timaada gobolka Shabeellaha Hoose iyo waliba gobolada Bay iyo waliba Bakool. geesta kale ee daawadayaal haddii aynu eegno wararka ku saabsan maamulka gobolka Banaadir, gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish waxa uu si adag uga hadlay arinta maqaamka magaalada caasimadda Muqdisho. gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cumar Maxamed Cumar Filish oo maanta ka qayb galay dibadbax ballaaran oo ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho ayaa ka hadlay arinta taagan ee maqaamka magaalada caasimadda Muqdisho. Cumar Filish oo dibadbaxayaasha inta badan taageeraya hadalkii shalay ee madaxweyne Farmaajo kula hadlay isagoo saaray gaari Cabdi Bilaa isgooska kiiloomitir 4 ayaa sheegay inaysan aqbali doonin in maqaamka magaalada caasimadda Muqdisho uu ka hooseeyo maamulada kale ee ka jira gudaha dalkeena Soomaaliya. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in gobolka Banaadir uu ka miisaan weyn yahay matalaada 7 xubnood ee laga siiyay golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. gobolka Banaadir wuxuu u qalmaa matalaad ka miisaan waliba macno weyn tan la siiyay maamul goboleedyada dalka ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish. ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay reer Muqdisho in ay isdejiyaan isla markaana ay xuquuqdooda ku raadsadaan si nabadoon ah. hadalka ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan dood badan ay ka taagan tahay maqaamka caasimadda oo la isku mari laayahay xilli ay foodan ugu soo hayso doorashada madaxweynaha iyo waliba mid baarlamaanka oo dhacaysa dhamaadka 2020 walow dowladda Soomaaliya aysan sheegin goorta ee sida rasmiga ah ee u dhacayso doorashada dalkeena Soomaaliya. dhammaan dadka shacabka Soomaaliyeed iyo waliba dhammaan mas'uuliyiinta Soomaaliya waxa ay sugayaan goorta nabad iyo waliba nolol ee doorasho ay dhigi lahaayeen. dhinaca kale daawadayaal haddii aynu eegno wararka ku saabsan gudaha magaalada caasimadda Muqdisho, dibadbax lagu taageerayo hadalka madaxweyne Farmaajo waxa uu ilaa iminkan ka socda gudaha magaalada caasimadda Muqdisho. waxaa goordhow Muqdisho ka bilowday dibadbax ay dhigayaan dadweyne isaga kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. banaanbaxa oo ahaa mid ballaaran ayaa waxaa soo abaabulay oo tan iyo xalay ku howlana xubno ka kala socda maamulka gobolka Banaadir waliba xogaga wadaniyiinta ee Soomaaliya. dibadbaxyada ayaa haatan ka bilowday qeybo badan oo caasimadda ka mid ah sida taalada Dahjirka Daasoon, isgooska Sanca iyo waliba isgooska kiiloomitir 4 ee magaalada caasimadda Muqdisho. dadka dhigaya dibadbaxa oo laga soo arooriyay dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa wata boorar lagu soo xardhay sawirada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. ujeedka dibadbaxyadan ayaa ah kuwa lagu taageerayo codsigii uu shalay Farmaajo ka horjeediyay baarlamaanka ee ahaa in gobolka Banaadir uu matalaad ku yeesho aqalka sare. sidoo kale waxaa saaka la xiray jidad muhiim ah oo ay ka mid tahay wadada Maka al-Mukarrama iyadoona la soo dhoobay ciidamo dheeraad ah si ay u xaqiijiyaan ammaanka magaalada caasimadda Muqdisho. si kastaba haatee arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo horey loo go'aamiyay in gobolka Banaadir 7 xubnood ku yeesho aqalka sare
oo lagu qaybsado nidaamka loo yaqaano 4.5ka taasi oo ay si weyn uga soo horjeedaan siyaasiyiinta waxgaradka ah ee magaalada caasimadda Muqdisho ku nool. ugu dambeyntii daawadayaal haddii aynu eegno wasiirka ammaanka maamulka Galmudug waxaa lagu soo waramayaa inuu ka badbaaday isku day dil oo lala damacsanaa. wasiirka ammaanka maamulka Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo xalay warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Gaalkacyo ayaa ka warbixiyay howlgallada 24 saac la soo dhaafay ee laga sameeyay koonfurta magaaladaasi. Fiqi ayaa sheegay in howlgallada oo ahaa kuwa qorsheysan oo lagu soo qabtay qaraxyo miina oo uu tilmaamay in la doonayay in isaga lagu dhajiyo gaariga si la igu qaarajiyo ayuu yiri wasiirka ammaanka maamulka Galmudug. sidoo kale wuxuu carab ku dhuftay in ciidamada ammaanka oo xoog markaasi helay qaraxaasi ay ka hortageen isla markaana ay fashileen sida uu hadalka u dhigay. sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in falkaasi uu fuli rabay nin ganacsadaha oo al-shabaab xiriir la lahaa kaasi oo magaciisa lagu sheegay Awees Macalin Maxamed Xasan oo la shaqeynayay nin kale oo lagu magacaabo Maxamed Xasan Faarax oo uu ku magac dheer Xuseen kana soo jeeda gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. wasiirka ammaanka maamulka Galmudug oo hadalkiisa sii watay ayaa xusay in Awees gacanta lagu dhigay kadibna ay ka xoog wareysteen waxyaabo la xiriira isku dayga dilka ah, halka uu xusay in Maxamed uu la diriray danab kuna toogteen gudaha magaalada caasimadda Gaalkacyo. ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay in howlgallada ballaaran ay ka socdaan koonfurta Gaalkacyo weliba guud ahaan maamulka Galmudug kuwaasi oo ujeedkooda yahay sida loo burburin lahaa shabakado ku howlan falal amniga weliba dilalka dhan mas'uuliyiinta maamulka Galmudug weliba Puntland. guud ahaan saaxiibayaal warkii aad kala socoteen channelka xogta dalka waa nigeenta anigoo Cabdirashiid Ibraahim Cali ee la socodsiinayay. saaxiibayaal waxaan leeyahay warkiisa xiga nooli kulantii waxaan idin ka codsanayaa inaad channelkan subscribe saartaan laaga tiraahdaan warkiisa xiga nooli kulantii